munaasabatii ugu sareysay oo lagu soo dhaweeyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka dhacday xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada tan London. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxa ay sheegeen in si aad ay ugu faraxsan yihiin in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxo madaxtinimada dalka Soomaaliya. rajo weyn ay ka qabaan in Xasan Sheekh Maxamuud wax badan ka qabto dhibaatooyinka ragaadiyay wadanka Soomaaliya. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin, aqoon-yahano, waxgarad, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wadankan Britain ayaa waxa ay sheegeen dadkii ka soo qayb galay in ay si aad ugu faraxsan yihiin in Xasan Sheekh Maxamuud uu noqdo madaxweynaha Soomaaliyeed, isla markaana uu yahay shakhsi aan wax dhibaato ah ka gelin dalka Soomaaliya, mudnaayna in loo doorto in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. waxaa halkaasi ka hadlay qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay iskugu jiray siyaasiyiin, aqoon-yahano, waxgarad, odayaal iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Britain. Xasan Sheekh sida aad ogtihiin ama aad ka aragteen waa nin nasiib leh. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa nasiibkiisu inuu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ee maanta dayacan inuu dayaca ka saaro. Xasan Maxamuud waxa hor yaala dhibaatooyin badan ayaa hor yaala inuu federaalkii uu hirgeliyo, inuu horka dhigis sameeyo, dhulkii la kala haystay, guryihii la kala haystay oo la kala qabsaday, inuu ummadda iska la hadu celiyo. marka Xasan Sheekh Maxamuud professorka oo dhalinyaro ah maanta hadduu qabtay mas'uuliyadda ayada ah professorka noolo madaxweynaha noolo waxay u baahan tahay niyadeena iyo xamaaskeena halka ka muuqda inaan ficil iyo dhihid iyo niyad ku tarjumno yaa loo baahan yahay. haddayna garab socon tahay, haddayna taasu garab socon maanta waxaa ummadda Soomaaliyeed farxad iyo reyn u ah inay maanta dalkeennii magaalo madaxdiisii in lagu qabto doorashadii baarlamaanka, doorashadii madaxweynaha. taa lafteeda waxa waaye Soomaaliya waxay u tahay guul yaan leeyahay. shirweynaha lagu soo dhaweynayo madaxweynihii loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda baarlamaanka Maxamed Usmaan Jawaari iyo hay'adiisa. waxaan jeclaan lahaa inaan idin xusuusiyo dhammaantiinba dadkiina walaalaha caawa halkan isugu yimid ee farxadda isugu yimid oo aan horay sidaan oo kale London aysan uga dhicin. waxaan jeclaan lahaa inaan idin xusuusiyo in halkan aan soo gaarno oo dawladeen aan dhalatay iyo madaxweynaha cusub ay la bilaabaan hawl xoog leh in loo soo maray. waxaan si gaara anigu maadaama aan la shaqaynayay dawladda oo caalamka iyo gudaha iyo meel walba aan ka qayb galayay shirarkii, aan idiin sheegayaa hoggaankii iminka xukunka ka tegay ee sharafta lahaa ee madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed in maanta uu yimid madaxweyne dhalinyaro ah oo aan gacmaha dhiig ku lahayn, oo aan ugu tumaynin inuu yahay maaragtay dadkii dhibaatada dalka maanta ka soo qayb qaatay. waxaan filayaa markaa wuxuu u baahan yahay in la taageero. taageeradiisu waa ku soo timaadeen. wuxuu kaloo u baahan yahay in loo duceeyo. annagoo dhan waxaan marqaati ka nahay inaan waddankeennii ka soo tagnay nimid qurbo, qof walba uu la tacaalay ilmihiisa iyo habadkiisii, halka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay waddanka maalintii u dhacay ilaa hadda ka dhacaysa. madaxweynaha sharafta leh, qiimaha leh, nasiibka leh, wanaaga badan
بروفيسور حسن شيخ محمود. waxaan kaloo u ducaynaynaa madaxweynaheena cusub xasan sheekh maxamuud aniga waa waxaan baleenaa ma dhahay waa u ducaynaynaa ee gacmaha ila taaga aamiin ila dhaha ilaahay waxaan ka baryayaa hogaamiyahan inuu noqdo hogaamiye daacad ah oo ay hormuudka ka yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari. waxaan u hambalyaynayaa madaxweynihii hore khaliil sheekh axmed oo taariikhda dhigay waxaan weligay arag anigu ma arag kolley walaalkeen mudane xasan sheekh maxamuud oo ah runtii nin maanta mas'uuliyad adag oo aad iyo aad u adag loo dhiibay. وقدر عاود بشيء أنا كان نجومه وسيد المقرادية أو فرن أو والعلماء أو قال الله أي أسبوع رجلين دمدي ملحوينه هراء وعلنا هيكون كنا بشرف ملحوينها عصنا علنا هيكون كل شيء كل كسبه ملحوينها عصب حسن شيخ محمود بروفيسور حسن شيخ محمود وحنلاقي هاي نغوكي هانتا قرننا الصومالي عاوة خيارته وعيش ويدينا أما سياسيين تنقدم بيه سبورتي محاكيني مرحلة دان عصب يوم مدحوينهن عصب أيان أمني مد إنان كلمتهن كالجيثنو سلام كبعدي waxaan rabaa madaxweynaha anagu aan baliyanayo madaxweynaha inaan u sheegno waxa ummadda isu keeni kara inuu sportska u yahay waxaan rabaa inaan hambalyo u diro odayaal dhaqameedkii gogasha fadhiistay ee xeerkii go'aankii ku gaaray in dawlad la dhiso. waxaa halkaasi sidoo kale heesta qiira la ka qaaday fanaaniinta ku dhaqan magaalada London oo si aad u soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliyeed. waa munaasabadii ugu horeysay oo nooceeda ah oo ka dhacda magaalada London laguna soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliyeed isla markaana ay si wada jir uga qayb qaataan dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Britain gaar ahaan magaalada London. Maxamed Cabdi Salaad, Royal TV, magaalada London.